kulmiyey baa mahadda iskale marka labaad waxaan mahad u celinaynaa culumaa diinka ugaasyada odayaasha dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada markaan iraado gabdhaha iyo wiilashaba weylay gabdhaha hooyooyinka inta xisbigan raacsan oo maqan iyo inta nala joogtaba mahad baan u celinaynaa xisbigu ma aha intan kaliya ma aha dowladbay kaliya isbahaysi badan buu leeyahay dhammaan salaan baan u gudbinaynaa kulligood isbahaysigan xisbigan uu leeyahay iyo inta la xidhiidhaba waan faraxsanahay ha farxeen baan leenahay waan faraxnay ha farxeen baan leenahay waan guulaysanay ha guulaystaan baan leenahay waa su'aalahayga u horreeya horta guusha yaa iska leh guusha yaa leh guusha yaa leh haa waa mahadsantihiin markaan hoos u yara dhacdhaco hoos baan u taabanaya aniga waxa weeye mahad xareed aadan ayada oo xulasho ayn jirin ayaa cod buuxa lagu ansixiyey maqal iyo muuqaal saxiix dhammaan aan ku ansixinnay annagoo bahaya boqor wax noo kala maqan jirin ayaan cod ka siinay ma aha mid meelahan laga daydeehaya maaha mid meelaha hoostood laga soo bixiyeyna maaha mid aan loo fiirsaninna ma ahayn mid loo fiirsaday buu ahaabaan leeh mid laga fikiray buu ahaabaan leeh nasiib darro ama nasiib wanaag baan dhahna haddaan doonno heego ruunguura ayaa naga hoos kacday gobolka nala dagaalamay maanta shirkanaga ama codkaygu wuxuu ku wajahan yahay laba qodob federaalka iyo kililka inta ka dhexle caddaymo ama caddaymaha reerka ama caddaymaha codkanaga federaalka iyo dawladda kililka intaba wuu hor yaallaa inaan raadinnay xisbiga inaan ahaano weligaannana xisbi yaan ahayn mucaarad nagama hor imaan mucaarad maanan ahayn mana aanan noqonin haddana mucaarad ma nihine waxaan nahay tartamayaal musharaxiin caadi ahaan nahay annaga waxaan sheegaynaa annaga oo caddaynaynaa kuwa nabadda jecel kuwa shicibka jecel kuwa cadaaladda jecel ee mas'uuliinta etoobiya heer federaal iyo heer deegaanba waxaan u gudbinaynaa in cadaalad darra aad u culus ay ka jirto degmada dolow bay mudane madaxweyne musrafa waxaan u sheegaynaa hordhigaynaa inaan dadka uu xukumo aan ka mid nahay haddana aan aad loo soo fiirinin sabab dadka la dooranayo nalama weydiinnin nalama tashannin annagaa lugaha naga ku geynay nalooguma imaanin u dambayn waxaa naloo keenay daaqadda in laga keena dad daaqadda in laga soo geliyey gabar cadaaladday ka fogta cadaalad darrada dowlad way ku dhacday meelay ku dhacday ma jirto waayo ummadda waa lala tashaday dogoodi waa lala tashaday gurro waa lala tashaday garre waa lala tashaday raafkaa cawliyahan waa lala tashaday maxaa tashiga noo diiday annaga soo dadkaad xukunta ka mid ma nihin madaxweyne mustafa miyaanan ahayn dadkaad xukunta miyaanan ka mid ahayn degmada dolobay maxaa ka jira cadaalad darraanta maxaa ka mid ah waxaa la yaab leh waxaa kaloo codsiga aan ku daraynaa doorashada boortiga cadaalad kama jirtee cadaalad ha naloo sameeyo
sabab nin guddoomiye oo mas-uula wiilkiisa u kaambayn garaynaya yaa warqadda gacanta ku haya guddoomiye walaashiisu mataqaanaa u kaambayn garaynhayaa joog waxaa kaloo cadaalad darro oo lagu sameeyey kulli heegaa lagu soo xareeyeyba xildhibaanadu waa heego ma cadaalad ba madaxweyne musnafaa la hadlayaa markaas bal inay cadaalad tahay waxyaalaha caynkaasaa dolobay ka jira inay cadaalad tahay in kale aad u fiiri na fiiri dadkaad xukuntaan nahay na fiiri shicibkaagaan nahay na fiiri shicibkan ka mid nahay haddii cadaalad darradan ay degmooyinka dhan ka wada jirto dee waa dhibaato waa dhammaan kililka dhanba ma jiray noqonaysaa hadday dolobay keliya tahayna halalaga dolo hal la ogaa dib loo fiiriyo waxaa kale midda maanta meeshan ka jirta ee qabiilkanaga ku dhacday dhibaatada ay ka dambayso ka imaanaysaa ka sii darane ha loo fiirsado yaa keenay gabadha ninkee la weydiiyey waxaan leeyahay qandaraasle iyo nimaan u dhalay fuqmed baa keenan leeyahay gabadha annagoo laga rabo in la isku kaana dhufto annagoo iyadoo naloo adeegsan in la isku kaana dhufto 300 oo nin baa iiga maqan siyaasaddaas xeraalay iiga maqan tahay xeraalay iiga maqanto iiga dhimatay caddaymaheedu taas waaye isku dhufashadka wareegga isku dhufashadaas gacmaha kale ka dambeeyaan intaasaa iiga dhimatay waxaan codsanayaa oon dowladda federaal ka codsanaya oon mataqaanaa midda deegaanka ka codsanaya oon musnafo ka codsanaya in arrimahaas dib loo fiiriyo nama qabatee ummad ballaaran oo soomaaliya iyo etoobiya intaa xidhan deggan baan nahay nabadgelyada intaa haysaan nahay ma nihin dad la arki waayo danta nalaga leeyahay maanan garanin maanta maanan garanin annaga waxaan codsanaynaa in nabadgelyada aad loo adkeeyo waxaan codsanaynaa in nabadgelyada la sugo waxaan codsanaynaa in dib loo fiiriyo markaan farmashin dhab aan ku daran oo xaqiiqa aanan been ka sheegaynin shalay shirkii meeshan xisbigaas ugu qabtay gabdhaha iyo hooyooyinka guriga loogu taray kaarkii caligaroobka lagu guraayey ama lacagaha lagu qaadanay soo qaata ayaa la yidhi mataqaanaa meeshaasa dadkii la turay taa ma cadaalad ba ma xisbinima mar ma xisbinima waxaas ma xisbinima ma cadaalad ba khayr allah idin siiya haddaad wada garateen waa ilaahay mahadi waxaannu isu sheegaynaa xaqiiqada waxa loo baahan yahay waa cadaalad waxaan daydaynayna waa cadaalad xisbiya cadaalad oon helnayna waan helnay waxaan u sheegaynaa madaxweyne mudane musnafa waxaan u sheegaynaa oon u caddaynaynaa xisbiga xarunta dhexe markaan tagnay faysal rashiid waraa maxaad noo imaanaysaan oo dad wada wadaan ninkaad rabtaan maad doorataan dad mucaaridka xisbiga ah ayaa u fadhiya meesha waa u sheegaynaa ina shaalle iyo ina shida hadday daaqadda wax ka keeneen iyo haddii mid annaga noogu talagalay xabad hadduu noo keenayba waxaan u sheegaynaa ilaahayna wuuna badbaadin doonaa xaqayna tegaysaa guushana waxaa iska leh mahad xareed baa iska leh ilaahay baa siiyaan leedahay degmada doolobayna cadaaladdaa ka maqane cadaalad baanu raadinaynaa haddii ilahay yidhaha insha allah degmada doolobay waxaan hubaa oo xaqiiqa ii ah iimana kala duwano mana kala jecli meesha ugu fiican ayaannu mari doonnaa haddii ilahay yidhaahdo degmada doolobay dadkeedana waxaan hubaa dhallinyaradeeda weliba sida dhallinyarada inaanan kala leexanayn nin kastoo hadda tegaya maanta oo xisbigaas loo cagajuglaynayo oo laleeyahay minshaarkaa lagaa goyn ama kanaa lagaa goyn ama kanaad yeelaysaa ma c b a baa laga goyn karaa wix kuwii c b a da ahaa iyo kuwo kale inta ka dhexle cagajuglahaasna waxaa waaye ma aha xisbinimee nin walba codku siin wuu yaqaanaa nin walba codka markii la gaaro codka ninkuu bixin waa la garanayaa waxaan leeyahay aan hadalkayga ku soo xidhayaa xisbigu ha guulaysto waana tartamee halla raalli ahaado xisbiyada kale hadda barwaaqo wax badan baan u soo heesnaye ayadaanna diidday maanan diidin marka hore laakiin waxaad moodaa xisbiye cadaalada inaan helnay baa noo muuqata annaga
ayaga sida ay ku dhaqmaysee mataqaana cali garoobka lacagta lagu guraayey iyo waxyaalaha sidaas kaararka la daba wareegayo markaan eegno ee la daba wareegayo ama heegada ordaysa markaan eegno inaan ka raysanayna noo soo baxdeen wuxuu yidhi ninka la yidhaha rashid war maxaad u imaanaysaan meesha xisbiyada maa iska sharaxdaan inuuna diiday ogow waraaqaha annaga madaxweyne ku-xigeenku wuu hayaa wasiirka madaxtooyada wuu hayaa aadan faarax heer federaala wuu hayaa dooxooyinka wuu hayaa ina ciid xafiis aan haynin ma jirto cabashadannadii caddaymaha annaga ma qarsanayna annaga wax dhab ah oo xaqiiqo ah oo ka soo baxay salka iyo wax kasta ka soo baxay baannu ku soconnaa annaga wadda xaqiiqa aannu haynaa wadda caddaan aannu haynaa ma aha mid mugdi a ma hayno mugdina ma doonayno danna waxbama dhimayno dhabtaannu ka sheegaynaa hadalkaygiina waxaan ku soo xirahayaa dhammaan xisbigu ha guulaysto ha guulaysto ha guulaysto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاس قارنة وقاس آذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ماشي سبحانه كان ما هذا وحن سلام يا مسلمين تماشي سوي مادي أنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة waxaan ka hadlayaa meeshan shirka la iskugu yimid ayaan ka hadlayaa xisbiga ayaan ka hadlayaa xisbiga labada xisbiga BB iyo xisbiga Sinaanta iyo Cadaaladda ayaan ka hadlayaa xisbiga BB iyo xisbiga Sinaanta iyo Cadaaladda markaan in wada sheego waa laba xisbi oo isgarab socoto waa laba xisbi oo tartami karto mideeda kale xisbiyada waa isku mid xisbi wax kale ma jirto annaga saasay noo wada tahay dadkana saasay u wada tahay laakiin dadka degmada doolooba ay joogo uma aha xisbiga Cadaaladda waxay ka dhigaan xisbi mucaarad xisbi aan jirin bay ka dhigaan ummadda bay iska hor keeneen nin walba oo shaqaale ah waxay dhaheen haddaan xisbigaas ag tagtid ma aha ankay qof ka mid ah haddaan salaantidan kay mishaarka waa laga jaranayaa mideeda kale haweenkii masaakiimaha ahaa oo boonooyinkii quudinta iyo calagaroobada haystay iyo haweenkii ilmaha haystay waxaa la yidhi kaararkiina soo wareejiyo aad ku qaadanayseen lacagta haddaad xisbiga BB raacdaanna waa la insiinaya lacagtiina way in soconaysaa haddii ayna raacinne waa inoo siinaya marka waxa waaye meesha waxaa ka jirta wax cadaalad darro la yidhaahdo waxaa ka jirta wax doorasho la yidhaahdo doorashadii hal la gala markii la yidhi waxa waaye wixii kan buugga qoraya waa iyaga kan sanduuqa haya waa iyaga kan wax walba haya waa iyaga nin walba ayagaa meesha fadhiistay annaga sanabaan noqonay sanabka aan noqonay guryihii waana laga xirtay waa noola diiday goob walba oon dad aan geysano dadkii waa la soo fiijiyey markaan tagnay aan kormeero ugu tagnay waxaa la yidhi xisbigiina xisbi jira ma aha cadaalad darro ayaa jirta meeshaas waa midda koowaad midda labaad waxa waaye waddan Fuq Maxamed ayaga uu yahay oo Fuq Maxamed wada leeyahay Fuq Maxamed waxa waaye waa hal hadda laba laga dhigay hadda macaarad la geliyay hadda la iska hor keenay dhibaato ayaa taagan mideeda kale waxa waaye Fuq Maxamed haddaan maanta waxa waaye Fuq Maxamed qof walba oo kursi la saarayo waa laga wada fadhiisan jiray waa laga wada hadli jiray ugaaska suldaanka boqorrada in la wada fadhiistaa waxaa la dhihi jiray yaa maanta meel geysanaa ishaasas loo marin jiray qofkii meel ka soo bixi karo baa la geysan jiray waa la fadhiistay Fuq Maxamed waa 14 jilib hotelkaas la fadhiistay oo doolobay ku yaala xoolo lagu qalay ari baa lagu qalay geel baa lagu qalay Fuq Maxamed waa isugu yimaaday meel walba uu jiray qoys walba laba qof saddex qof baa laga saxiixay in maanta la saarayo mahad qoyskiisa maanta wadanka wuu degan yahay
laakiin fuq maxamed oo idil baa wato ya cod baa laga hayaa muuqaal baa laga hayaa wax walba laga hayaa waa la isdhaarsaday saxiix baa laga hayaa ugaaski iyo odayaashii way bixeen waxaa la aaday ilaa korba la aaday ilaa federaal baa la aaday meel walba warqadaha la soo daadiyay in la isku duuban yahay gabar baa la keenay oo daaqada laga soo galiyay ma garatay maanta waxa waaye fuq maxamed maanta wuu isku jaban yahay maanta fuq maxamed midiyuu isku la baxay waana laga shaqeeyay ingiriis ma arkin laakiin talyaani soomaaliya etoobiya doorasho aanan intaasoo doorasho aan soo maray baan ahay intaasaan jiraan ma idin dhahayo markay tahay intaas doorashadii aan arki jiray wax ka bedelan baa hadda inay ii muuqda mana garanaya sababaha keenay marka sababaha keenayna waxaan u garan karaa sababaha keenay wadadii aan arki jirnay iyo doorashada si aan ku naqaanay ka bedelkeeda waxaa kaliya ii muuqda waxa ka dhalan doona annaga markaan nahay reer doolow bay aniga waxaan ku hadli afka doolow bay waxaan raacinayaa doolow bay weli khilaaf iyo weligay doolow bay oo laga dhex sheegaya mucaarad ma maqal marka sheegitaanka mucaaradna wuxuu ka mid yahay dhaawacinta iyo soo jiidashada cadowga yuu ka mid yahay marka ayadaas waxaan ka digahayaa in aynan nagu soo noqnoqon meeshaan ha joogto labo musharax ha joogto inayn dhicin mucaarad baa jira ree hebel baa mucaarada hebel baa mucaarada nin kasta inayn arrimahaas dhicin baan horta anigu yaan digahayaa waxaan kale oo raacinayaa xisbigada oo ninkan la yidhaahdo mahad waa xisbi ninkaanu annagaa doorannay annagaa soo dirnay annagaa ka shirnay annagaa dawladda u gudubsannay markaas hore annaga oo ka fikirayna wax ay dawladdu nala qaadan karto ama ay naga aamini karto ama naga socon karo annagoo ka fikirnay marka qabala ahaan santar ahaan qabiil ahaan markaan wax kasta munaaqashaynay santarka la yidhaha gubadley baan inuu fulin karo arrimahaas yaan maartay isla qaadanay sababtoo ah santarka isaga ah 400 oo ciidan santarkii lagu tababaray oo ka soo baxday weeye waqti xaadirkana ciidamadii maalintii ninkii tababarka noo xidhay wuxuu nagu yidhi maanta laga bilaabo waddanka adinkaan idinku ognahay adinkaan idinkagu hurnaa waddankaan idin samayna intoo kalena mar labaad waa idin samayn doonaa buu yidhi innagoo waqti xaadirkan intii dambena in naloo samayna rajaynayna horta ninkan innagaa soo doorannay innagaa soo dirsannay waxaa aniga iga su'aal ah sida codkanagii iyo dadaalkanagii uu u hergeli waayey sababta uu u hergeli waayey in la ii sheego waa u baahanahay waxaana leeyahay wax allaale ee wixii qabiil bah iyo boqor iyo qabalo iyo santar u idin codsigoodii iyo soo jeedintoodii wixii dhaawacay horta inaan helnaan u baahannahay marka intaa qabiil idin oo codkiisii uu fuli waayo ninka kale oo codkiisu fuli doonana horta waaba isweydiinaynaaba marka ma garan karno annaga sababaha ay ku imaatay cod maalintaasna cod kale maba jirinba kaanaga unbaa jirin hajeese waa jirtaa tartan wax la yidhaah wuu jiraa waan ognahay laakiin tartan ma garanaysaa dibka imaad ah ama maaragtay masayrduul ah haddee in la qiimeeyo kii maaragtay madax bannaani iyo haddaan ilaahay laga isla qaadasho qabiil ku imaadayna la raqiisiyana aniga ilama qumano waxaa kale oo jira oo u sheegahayaa inta hadalkanu quseeyo oo ma garanaysaa ku shuqul leh waxaan u sheegahayaa wax allaale iyo wixii niyadjab qabiil ama waddan keeni kara in laga fiirsado oo aan nalaga shallaysiinin
dadaalkanagii iyo ma garanaysaa waxqabadkanagii iyo ilaa xayla sallaas wixii aan soo qaban jirnay waddanka etoobiya inaan nalaga shalaysiinina waan gudbinaya waan ku darahayaa waxaa kale oon raacinhayaa doorasho haddaan ilaahay laga waayayna way jiri jirtay laakiin digdig iyo haddaadan sidan yeelin waa lagu xiri shaqadaa lagaa joojin anigu ma arkin weligay meel ay ka dhacayso marka waxaa kale oon raacinhayaa annaga xisbiga dad ama xisbiga khilaafsan ama xisbidiid ma nihin laakiin xisbiga qudhiisa waxaan u sheegaynaa ama dawladda u sheegaynaa in nalaga ilaaliyo awood sheegasho dawladeed oo dad xor ah oo caqligiisa iyo fartiisa warqaddiisa dhiiban kara inaan nahay oo carabkanaga iyo codkanaga in aan xor u nahay in naloo oggolaado baan doonaynaa waxaan ka digahayaa waxaa jirta wax la yidhaahdo awood sheegasho dawladeed in nalaga ilaaliyo oo naloo qiimeeyo qabiilnimadannada waxqabadkanaga ma garanaysaa aafta aan joogno diyaargarowga aan ku jirno in naloo qiimeeyo oo maanta waxaan ninkan u soo gudbin yaa inka socon kara in nin naga socon kara inuu yahay markaan isla qaadanay baan soo gudbinay in nalala qaato oo ma garanaysaa dad oo docka imaad ana aan nalalaga simin intaas baan hadalka ku soo xiri lahayaa waxaa iga codsi ah nabadgelyada waddanka in waan haynay waana naloo diray waana ku jirnaa ciidankii tababarka loogu xiray gubadley dadkii hogaaminhayey ama maamulahayey ama saldhigga u ahaa buu ka mid yahay meeshaasaan ka soo xeradaynay in sidaa nalooga guddoomo oo naloogu talagalo